ummadda Soomaaliyeed wuxuu leeyahay taariikh aad iyo aad u fog wuxuuna jiray tan iyo intii gumaystaha caalamiga soo baxay waxaynu ognahay halyeeyay Axmed Ibraahim oo ku magac dheeraa Axmed Gurey ahaana xeel dheere cilmi iyo abaandoonihii halgankii gobonnimadoonka Soomaalida intii u dhaxaysay 1529 ilaa 1543 oo la dilay isagoo oo dagaalamaya wuxuu dhashay 1500 markii ay miilaadigu ahaa isagoo ku dhashay magaalo la yiraahdo Hobti oo ka tirsan gobolka Herar ee Soomaali galbeed ayaamihiisii waxay ku soo beegantay waqti ay dareemeen dadka muslimiinta ahaa ciriiri qaraar oo ka imanayay xukuumadda Abasiiniya kuna fidsan dhulfidsi taasoo ku saabsanayd dhulfidsi iyo faafinta diinta masiixiga halka dhinaca muslimka loo muuqday in ay ku habsatay kala furfurasho iyo midnimo la'aan ay sababtay hoggaan xumo waxaa jiri jiray waqti horeeto dawlad adag oo muslim ah markaa dawladdii horeeto ayaa soo yara jilcaysay waagaas haddaba markii uu soo laabtay ama ka soo laabtay waxbarashadiisii uu Zeylac ku bartay wax ku baranayay wuxuu ka dhigtay magaalada Herar goob uu ku fidiyo himiladiisii midowga islaamka wuxuuna ugu yeeray isjacayl iyo walaalnimo iyo inay gacmaha isqabsadaan markii uu ku guuleystay arrintaasna wuxuu alkumay ama asaasay ciidan xooggan oo uu hogaamiye ka yahay waxaana loogu yeeray Salaaxudiinkii Soomaaliya waxaa jiray boqor waqtigii Faadimiyiinta dalka Masar xukumi jiray oo Salaaxudiin al-Ayyubi loo oran jiray oo ka mid ahaa dawladihii ugu adkaa ee dalalka islaamka ka kacay taasoo uu ku mutaystay sidii adkayd ee ugu hortagay fiditaanka diinta masiixiga ee ay xabashidu ka waday dhulkii ay boobtay ee Soomaalida dagaaladii Imaam Axmed uu hogaaminayay wuxuu soconayay 15 sano in ka badan wuxuuna qarka u saaray in ay isdhiibaan ciidamadii cadowgu haddii aanu gacan ka heli lahayn cadowgu boqortooyadii ama xan ilaahdo dawladda Boortaqiiska ahayd oo markaas ahayd caalamka dawladda ugu xoog weyn khaasatan kuwa gaalada ah inkastoo oo laga helay kaalmo qalab ciidameed dalalka islaamka qaarkood sida Yemen iyo Xijaas oo soo gaarsiiyay 900 oo faras iyo xoogaa madaafiica haddana ma ay ahayn wax ku filan halka ay dawladda Abasiiniya ka heshay taageero aad iyo aad u fara badan oo ay dawladaha masiixiga ah kala koontay si kastaba ha ahaatee dawladda Boortaqiisku ee xoog lahayd waxay dhiirigelisay niyadda ciidamada cadowga xabashida oo markii la hanjabiyay xabashidu waa gumaysi weeyaan ladeen maayeen waxaa la sheegay in laga dhaariyay hal iyo ka badan oo xabashi ah in uu dhibsado inuu dab ku shito haddii gabalba dhaco dagaalkaasi waxa uu gaaray in magaalada Kafal la yiraahdo oo wax yar oo kiiloomitir aan boqol gaarin u jirta magaalada Addis Ababa in uu gaaray duulaankii waxa ku xigay markii uu duulaankaasi Amiir Nuur qabsaday Amiir Nuur waa la dilay kadibna sidaas ayuu adigu dabkiisa muddo ku baqtiisnaa dhaqdhaqaaqii daraawiishta aynu nimaadno Sayyid Maxamed Cabdulla Xasan haddii uu muddo kala go'ay halgankii xornimadaanka ahaa waxaa la soo gaaray qarnigii 19aad dabayaaqadiisii shirkii Berlin ee lagu qaybsaday Afrika iyadoo oo ummad kaliya ama ummadii kaliya ahayd ee Soomaaliyeed 5 meelood loo kala googooyay wax la yaabo ma aha haddii nin wadaad ah dalkii uu ka dhashay oo ka tago ama ka guuro oo uu deegaan kale ka dhex tago oo deegaan kale tago hayaqaano deegaanka ama yuusan aqoonine ha ka fogaadeen ama ha u dhawaadeen sidaasina waa culimada alabkeeda si kasto oo ay tahayba waxay rumaysan yihiin culimadu meel kasta oo uu tagaba inuu Ilaahay magantii yahay dadka uu tagayna ay la walaal yihiin
iyaguna ay diinta ka baranayaan isna uu xoolo iyo xurmaba ka helayo taariikhan ciidana sheegi karin ayaa sheekh xasan nuur oo awowo u ahaa sayid maxamed cabdilla xasan wuxuu ka tegey gobolka qallaafo ee webi shabeelle wuxuuna aaday nugaal oo ahayd dhul wanaagsan hodanna ku ah duunyada si fiicanna loogu noolaan karay culimmaduna had iyo jeer ay u xoolo doonan jireen halkaas waxaa laga garan karaa sheekh cabdulle walaalihiis iyo carruurtoodiiba in ay ku dhasheen ayna ku dhaqmeen nugaal sayid maxamed cabdilla xasan oo ka mid ahi wuxuu dhashay gugii la baxay gobaysane hilaada waxaa lagu sheegay gugaas 1864 qolo kalena waxay tiraa 56 buu ahaa waxaa la sheegay magaciisa gugaas waxaa loo jiray gobaysane saan soo sheegnayba waxaa la sheegay dad iyo dunyo wixii dhashay sanadkaasi waxay noqdeen hanaqaad wuxuuna ku dhashay balliga la yiraahdo Sacmadeeqo oo hilaadii 12 kiiloomitir kaga aadan magaalada Buuhoodle dhinaca waqooyi hooyadii waxaa la oran jiray Timiro Seed Magan oo ku caan noqotay Caraseed quraanka wuxuu ku bartay gurigoodii iyadoo oo cilmigana uu ka raacday xir fadhiyi jirtay dooxooyinka Casuura iyo Yaahel oo ka tirsan nugaal abaaraha 1992 wuxuu u kacay xajka waxayna israaceen 13 xertoodii kamid ah laba gu iyo dheeraad Maka iyo Madiina ayuu ka maqnaa waxaana la sheegay inuu Masar iyo Suudaan ba soo maray kadib sayid maxamed cabdilla xasan wuxuu ka soo degay marsada Berbera oo la deganaa markaas muslim iyo gaalaba waxaa la wariyay doontii hadii uu ka degayba madaxii kasanka Ingiriiska ayaa wuxuu weydiiyay cashuurtii wuxuu ugu jawaabay adiga yaa ka qaaday cashuurta kolkii aad imanaysay afhayeenkii ayaa ku dhahay baa la yiri waa wadaad waalana inaga siidaa waa meesha ay ku baxday naaysa wadaadkii wala oo marmulla ay Ingiriisku oran jireen sida taariikhda qorayaashu ay sheegeen sayid maxamed waxbarid iyo wuxuu bilaabay dab urusi intii u dhaxaysay 1895 ilaa iyo 1900 markii ay taariikhdu ahayd 1900 ayaa la qalqaaliyay col xaadle si loo dumiyo dabka halkaas ka baxaya inta aanu xididaysan iyadoo oo qarixii xabadii maalintaas la riday ay socotay 20 gu iyo intii u dhaxaysay inta la yaqaano ama ay taariikhda qorayaashu ay xustay 40 goobood bay Ingiriis iyo Daraawish isku hardiyeen kuwii ugu waaweynaa ama ugu caansanaa waxaa ka mid ahaa Afbakayle oo dhacay 3 bishii shanaad 1901 Fardidin oo dhacay 1991 bishii toddobaad Beerdiga oo dhacday 10 bishii 8 1902 Agaar Weyne oo dhacay 17 bishii Abriil 1903 Daratoole oo dhacay Sidbaale oo dhacay 1904 bishii koowaad Ruuga ama Dulmadoobe oo dhacay 9 bishii 10 1913 iyo Dayuuradii oo 22 bishii December 1919 ahayd Ingiriisku dagaaladaasi wuxuu u qaybiyay 3 duulaan oo mid waliba uu socday dhowr sano duulaanadaasi oo tab iyo xirrimo gaar ah mid walba iyo xoolo loogu talagalay ay lahaayeen dadka Soomaalida ahi markii ay run gaadhay wuxuu u kala baxay laba dad gaalada raacay oo garab iyo gaashaanba u noqday iyo kuwa jihaadkii ka barbar dagaalamay Daraawish sida dalalka kale ee reer Yurub geeyga Soomaaliya wuxuu Ingiriisku goostay in uu gumayso 1984 kadib shirkii Berlin isagoo oo keenay wadaado Kristaan ah si ay u fidiyaan diintooda taasina waxay sayid maxamed ugu muuqatay in dalkii la qaatay diintii islaamkana la xididasiibayo sayid maxamed wuxuu ku tashaday inuu taas ka dagaalamo wixii awoodiisa ahna talaabo ka qaado taas oo ku xambaartay in uu wacyi gelin iyo wax u sheegid uu bilaabo si dadka uu diyaariyo ujeedooyinka gumaystaha uu watana uu ugu baraarujiyo hase yeeshee dadkii magaala galka ahaa
وحجرب ومجمهرين كديدجا تباها جميسيا وحين أقوم مغتي إنه أبحو بالكميجا أو بقولك بس تجاشن تذكر الصومالي ذاهي كنوا ليهين يضو أنت مجال شوكا هنا أي دقنا هم كنت سنايين كميجا واجس هذا ما كن يستقال بقول تجاشن يتضمدي يسقوا أي وهليا كوح ولا داه بربراء أيو كان ببحي وحين سلبتين اللي إلى هذا قريوين كن يسدد بقول تجاشن يتضمدي من كذا كسوان اللي إلى هذا قريوين ولحنا ميل وشرته مجال برعو كجانا توصل كوفر بري halkaas oo ahayd meeshii uu ka unkay unigii ugu horeeyay dhismihii daraawiisheed intii laba gu iyo dayr laga soo wareegin wuxuu isku dubariday dadkii dhulkaas deganaa oo dhan warkiisuna afarta geesba waa u fiday ingiriisku ma filaynin mana malaynaynin in sayid maxamed urursi ku maqan yahay dad oo dhanna raacay warkiina wuxuu ku noqday agagixiso waxa amanka ku sii riday sida uu u dumay una abaabulay ciidan xooggaas leh daraawish waxa la dagaalamay ama ka soo horjeeday 6 ciidan oo kala duwan sida ciidanka ingiriiska ciidankii talyaaniga ciidan xabashiyeed iyo 300 ciidamadood oo ahaa suldaan cali yuusuf boqol cismaan iyo galad maxamed cali shire 300 oo ciidamadooda gumaysigu gacan siinayay si ay talisyadooda u nabadgeliyaan daraawiishina intaas oo dhan gaashaanka ayay u qabatay in badanna waa ay ka libaysteen cid kastana way ogtahay sayid maxamed iyo daraawiish heerka sare ee ay gaareen iyo wixii gaalo iyo cawaankeed kala gaaray ama ay kala muteen haddaba bal aan soo qaadano gabay uu tiriyey ismaaciil mare kuna hal qabsaday nimay qoys iyo saaxiibnimada ay dhow ay lahaayeen oo la oran jiray xaaji maxamed cawl isagoo oo tilmaamaya wixii dad iyo daraawiish kala gaaray sayid wuxuu yidhi ismaaciil gelin dhexe xalaan maxamedow geertay oo kacaye gamina waaye hadalkay tidhi gacalow naagtiye waxay tidhi aday goblo waxay tidhi adaa igu gondolay garab yartaydiiye adigay goblay tidhi markaad gaaska wadateene waxay tidhi aday guri dhigoo malihi gaadiide waxay tidhi adaa guyaalkii gaajo ii dilaye waxay tidhi gorboodkii adaa geesaha u dhigaye guhaadeeda aan jirin balcangaba ka soo qaato hadduu wuxuu sheegayaa wixii dhacay wuxuu yidhi gumburo iyo cagaar weyniya geedkii daratoole goobtii jidbaaliya xargega guuldarradii joogtay gembigii ka dhacay ruuga iyo gudurgii haagay gaboodeeda beerdhiga wixii la isku goolaamay meydkii gabraday seerigay good ku tumanaysay gobolkan maraysaba laftaad galayaxaa moodo ogaadeenka gaanka ah wixii gaydho laga qaaday iidoor cayuu godan wixii gelin la weydaashay shir shooraha gudban cayd wuxuu gorof la meeraystay garcas iyo majeertee wixii gunyo laga dhaashay gob ninkii ahaan jiray wuxuu gibil madoobaaday diidigiis naflaa'iga wixii gobolba meel aaday tayuuradaha gowliya wixii samada guuxaayay daarihii galangalkaan noqdiyo gebiyadii ciiray wixii guuldarriyahoo ka dhacay dunida guudkeeda gembigii iyo jahaadkii arlada gaday wixii joogay gaaliya daraawiish wixii dhulka kala gaadhay keligay ma wada geysanina la isku geeriyooye geyigii rogmaday oo dhan baad guudka ii suriye waxba hay guraynina dembaad galabsanaysaaye gartaa maaha naag yahay inaad ii galgilataaye gashi kaama qabo oo ma layn gabanadaadiiye gambana kaama furan baan u fili gulufyadaydiiye naagefkii iyo beenta daa yeedan gelin godadkii naareeda ismaaciil mire istifaac adag ayuu kala hor yimid duqdii wixii dhacayna inaysan qof u aanoobin keliya oo aan fooda loo saari karin ayuu halkaa ku caddeeyey haddaba 18 markii dagaaladii socdeen habeen iyo dharaarna la isku aloolaa labada geesoodna ay lagu naafoobay dad iyo dunyana lagu caydhoobay daraawiishina ku laga baxsatay buuraha ceergaabo iyo arlada badyarada cadmeed u jeeda waxaa ingiriiska ku baraasatay arrin dabadeedna wuxuu goostay in daraawiish lagula dagaalamo dayuurado
oo aan si kale loogu caalheli karayn haddaba markii taariikhdu ay ahayd dabayaaqadii 1919 iyo horaantii 1920 ayaa ingiriisku kaga soo duulay cir dhul iyo badda intaba 8 yuuradood oo ugu horeeyay waxay duqeeyeen midhishi shidani iyo badhan goobahaas oo qalcado daraawiishtu ku lahayd waxaana la sheegay in lagu soo riday hal dayuurad ah oo ka mid ah meesha la yiraahdo ceeldheer maalintii dambana Taleex bay ku soo duuleen inkasta oo bamkii waxba ka tari waayay daraawiish koonfur bay u qaxday halkaas oo ciidan xoog leh hore u sii joogay qorshilele iyo harashugu oo Shabeelle ku yaala una madax ka yahay Khaliif Sheekh Cabdille ragtana kama dhamaatee in horena way qabeeneen ciidan duulaan loo habeeyay iyo inay rogaal celin ku sameeyaan waxay noqdeen qayb taala iyo in taraf u leeatay oo la kala aasi kari waayay taasoo markii uu maqlay ingiriisku uu guutooyin Soomaaliya soo qalqaaliyay halkaasi wixii ay heleen waa dileen dunyadiina waa ay taabeen waxaa xoolaha ka mid ahaa geeli la baxay hagowgane magacaas wuxuu ku baxay baa leeyahay ninkii laga qaaday ciil buu la hagoogtay kii ka qadayna caru la hagoogtay midkii wax ka saanyideen kibir buu la hagoogtay farabadnaan intuu ka qabo firnadkii daraawiisheed wuxuu galay qarri jiqood ugu dambayna waxay tageen go'aano iimay oo ku taala Webi Shabeelle xagiisa sare meel daraawiishta ka shidana halkaas baa ugu dambeysay Sayid Maxamedna halkaas buu ku geeriyooday 1922 bishii Janaayo baa la yiraahdaa daraawiish markii ay jabtay Sayid Maxamedna geeriyooday gumaystuhu wuxuu xoog ka saaray in uu raadkoodii baabi'iyo si aan loogu dayanin taariikhdoodiina looga sheekaysan dabadeedna wuxuu fidiyay dacayad aan raad lahayn iyo xumo ka sheeg si aan tii oo kale ta u dhicin wixii kutub buugaag ama gabay iyo waraaqa ahaana waa la gubay kasoo halgankii dheeraa ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan uu galay xornimada Soomaalida wuxuu inooga tagay suugaan aan wax la miisaan ahi jirin oo afkeena aad iyo aad u dhistay ilaa inta la og yahay waa kan ugu kayd badan abwaanada murtida Soomaalida dhaxalka ay ka tageen Sayid Maxamed waxaa la sheegay in ilaa 120 gabay in ka badan laga hayo sayidka oo isugu jira gabayo iyo garaaro iyo masafo iyo jiif waxyaalaha uu ku caajiseen waxaa la yiraahdaa gabayga waxa loo qaybiyaa ama mansada waxa loo qaybiyaa 7 qolo waxaa la Sayid Maxamed 5 kamid ah uu ku gabayay baa leeyahay gabaygu leeyahay garaar buu leeyahay masafo leeyahay jiif tuu leeyahay waglo ayaa nooc la yiraahdo ayuu intaba diiwaankiisa ku qoran kuwaas oo nin kale oo loo hayaa uusan jirin waxaa kale oo Sayid Maxamed gabayadiisu ay gaar la siiyeen dhammaan xurufta af Soomaaliga ee abjadiga oo uu ka gabiyay alif ilaa ya uu ka gabiyay marka aan intaas sayidka ku dhaafno waxyaalaha haleeynimadiisa inoo qiraya Sayid Maxamed waxaa ka mid ahaa ama gabyaaga ahaa ee Soomaaliyeed dhammaan waxay qireen haleeynimada sayidka aan ka soo qaadano mesela ninka la yiraahdo Hadraawi aan ka soo qaadano mar uu ka hadlayay Sayid Maxamed isagu wuxuu ka hadlayay suugaanta qiimaheeda markaasuu wuxuu yiri hal abuurka niman baa hawraar u bixiyo 7 hebel oo hasha maali jiray baa hana qaad isbidado haaneedka raaga qaban jiray haruubko ali duuxnahoodu dadka kaga horeeyo hidraac dhamaan bay haba wada shaqeen Sayid Maxamed hawlaha halgankii jihaadku u horkacay daraawiish murtiba halbowliyo waxay halhaysoo Soomaali hurdu hoobay ku kiciyo hanoolaatadeeni dadku heesihii bay ka dhigteen halgaado Muqdisho iyo Hargeysa gudin iyo hangool iyo heelna xoreyso wale hoobalkan jirin wiil Soomaaliyeed waxaan uga jeednaa yani Sayid Maxamed hawlaha halgankii jihaadku u horkacay daraawiish waxa kamid ah ragga kale ee qiray ninka la yiraahdo Qaasim wuxuu yiri Allah oo darwiish ayaa fariin dabacsan gaarsiiya Allah yaa dalkaagii ku dhaca dawladnimo qaaday Allah yaa dawladada Taleex uga damaashada Allah yaa darmaan qurux sanduuq u heemseeya fardaha yaa dirkii loo dimeer doona farcadiisa in dariiqadii nooshaay oo diina soo gaaray oo dadku shiday
ركل دوغ بيسي ساري الله يا أفلم داري دعاد وشاقة وحولي سوى قرية مروا هذه قبقة وحولي جيران فاقية روحيو سيد في جالاد اللاييو ودون شيء النور يقمان بالكوكر موضوع قلت ذي حكمتي قد يقان وحكا الشاقة نينكي قلت عدامة قيقع عوقنور marka isna wuxuu sayidkii galada laayay marka inuu mujaahid ahaa ayuu isaguna cadeeyay